wafdidan uu horkacayo madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo maanta ka soo kici timay dalka Djibouti ayaa waxay socdaal qaatay muddo saacad ah ku soo mareen dalkani Kenya waxayna wafdidan isla maantaba uga ambabaxeen garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada tani Nairobi dalka Ingiriiska oo la filayo inay kaga qayb gali doonaan shirka wada tashiga ee Ingiriisku uu qabanayo arrimaha Soomaalida oo maalmaha soo socda ka bilaaban doona magaalada London. wafdidan oo soo gaadhay dalkani Kenya goor hore oo saaka ayaa waxa madaxweynaha socdaalkiisan ku weheliyay wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka gaashaandhigga ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka Xuseen Carab Ciise waxaana ugu horeynba saxaafadda uga warbixiyay howlgalladii ugu dambeeyay ay xukuumaddu qaaday iyo qorshaha ay wasaaradda gaashaandhiggu beesha caalamka ugu soo bandhigi doonto shirka Ingiriiska. wasiirka gaashaandhigga sadogtiinba imaka howlgallo weyn baa Muqdisho dhexdeeda ka socda xagga dib u soo celinta nabadda oo waxaanu shir la galnay annaka iyo booliiska iyo nabad sugidda iyo gudoomiyaasha oo si plan cusub loo sameeyo imika shalay iyo maanta ba socday oo baaritaan oo laga saareeyo dadka ku soo dhuumanaya magaalada dhexdeeda. asaan ku sheegay annaka tan ugu muhiimsan gaashaandhigahan waxa weeye imika dagaalkan aan ku jirno runtii waxa weeyaan waa laba wajiib uu leeyahay mid waa la dagaalamayna cadowga waa dib u xoreyntii gobolada ta kale waxa weeye laakiin in xoogga dalka Soomaaliya militariga ciidamada qalabka sida runtii wixii loogu talagalay ay helaan ama ha noqoto in cunno qabteynta laga qaado xagga hubka in tababarkii in baseski loo sameeyo in runtii la tayeeyo ciid xoogga dalka Soomaaliyeed ay noqdaan mid professional oo isaga howlgali kara imika ma lihin awoodda ma lihin runtii intan sidan ahayna weligaa ma garanaysaa xoogga dalka Soomaaliya security-ga dalka ma soo celinayo anagoo kale maahay booliiska iyo nabad sugidda laakiin maanta waxa weeye xoogga dalka Soomaaliyeed meesha uu marayo wuxuu u baahan yahay in lagu soo celiyo sidii uu ahaan jiray bariga hore. dhanka kalena madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu ka warbixiyay ujeedooyinka socdaalkiisan uu ku aadayo dalka Ingiriiska isagoo carabka ku dhuftay in shirka London aan marnaba lagu soo qaadi doonin wax dhaawacaya masiirka iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed. qalbi waa ka warhaysan safarkeena London aan ku sii jeednaa insha Allah ummadda Soomaaliyeed meel joogtaba waxaan rajaynaynaa wax ka farxiya inay ka soo baxaan meeshaas 20 sano kadib in Ingiriisku oo isxilqaamo oo shir qabto annaga waxaan u aragnaa ififaala horumar inay tahay marka wixii aan Soomaali u qalminna lama soo qaadi doono wixii dan waa insha Allah waa ku dadaali doonaa marka ma santii wafdidan oo ka ambabaxday dalkani Kenya barakowdii duhurnimo ee maanta ayaa waxay ku sii wajahan yihiin magaalada London ee dalka Ingiriiska halkaasi oo la filayo in jaaliyadda Soomaalida ee ku nool ay si heer qaran ugu soo dhaweeyaan. socdaalkan ay wafdida uu hogaaminayo madaxweynaha dawladda federaalka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo wasiirka gaashaandhigga ee dalka Soomaaliya ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Soomaaliya ay ugu ambabaxeen magaalada London ee cariga Ingiriiska ayaa waxa uu ku saleysan yahay sidii ay uga qayb gali lahaayeen shirka Soomaalida 23 uga furmi doona magaalada London isla markaasina uu dalka Ingiriisku doonayo inuu lagaga hadlo arrimaha Soomaaliya ee muddada ka badan 20 sano cakirnaa. Cabdiraxmaan Cumar Cabdi Cabdiraxmaan Soomaali Royal 24 TV Jomo Kenyatta Airport.